حيا ما أنتم بلعبنا Somali course inshallah. Didn't ask you, so how is your Somali level? Can you understand everything? What about writing, reading? Okay. I would say I understand everything, but I struggle with grammar and like sentence structure. Mhm. So I kind of know, for example, like I struggle like speaking. I can like say a few things, but when it comes to a conversation, I don't know the sentence structure properly and the grammar. So, and also my pronunciation is sometimes wrong. Hmm. So what Yeah. about writing, reading? Can you already write and read Somali? But it's also difficult for you. No, الصومالي وآخر كرة الصومالي وقرى كرة لكن وحوايا Hmm. في هذا الصومالي القاهر. هذا الكي يعني ما في عن. Okay, so we're gonna start inshallah, and we're gonna do every class some speaking practice, and also we're gonna use the class materials in the Google Classroom. So if you are in the Google Classroom, you can find everything from here, Bara Somali. If you go here, then you see classwork. And in the classwork, there is 4 topics. The first one is, okay, let's see here, lessons, and there is vocabulary, there's flashcards, there's assignments. And in the bottom, we have some YouTube videos from Somali Tabs YouTube channel. So we're gonna work every time the lesson section with vocabulary section, flashcards, then you're gonna do some assignments. Let's see. Okay, that group is for submitting the classwork and assignments. That's why you are in. So the Okay. group, yeah, so to submit the classworks, for example, after this lesson, you need to go the group and read the small alphabets with voice note, like yeah, with your voice note. And also there will be another task after that in lesson 2, there will be reading test. And lesson 3, there will be writing test. And every lesson has its own assignment. You can do that after we go lesson 1 to 5, or you can do that after every lesson and then the assignment. Like lesson 1, there will be flashcard and there will be assignment. So you can do after the class assignment 1, or maybe you could do once lesson 1 to 5. Because when we reach lesson 5, we're gonna do assignment. I mean test from lesson 1 to 5. That's general test, reading, writing, speaking, everything. Yeah. So you when you said I have to submit my homework to the WhatsApp group, everyone's gonna hear me do with the voice note, but won't that bother people if they get other people's homework, or everyone wants to see other people's work? Yeah, that's the main goal for the group. It's fine. Yeah, it's fine. So every student is doing like that, so it's fine. And also it gives you kind of confidence to do your voice note on there. It's fine. So everyone is just learning. There's no judgment or something like that. Yeah, it's fine. It's fine. Yeah. I could say to the students, send me as private, but that doesn't make more sense. So in the public, it's fine. And that one is just private Bro Somali group. It's not so many people, I think. So the public one is so many people. So in the public one, there's 156 people. For the private one, it's only for one-on-one or group students. It's only 25 participants. Yeah. Okay, perfect. Yeah, so it's fine. Okay, now I'm gonna read all of them. And we also we'll have Google document to do the class notes. So every student has their own Google document. And if you can see here, these are the students I'm working with. So I'm gonna make you one note for you. So I'm gonna try to make copy one of these. And let me copy this one instead of creating a new one. Okay. So yeah, we're gonna have other explanations in here. Okay, those make copy. So we can say Hamdi and some other class notes. Okay, copy.
This one. Okay. Yeah. Okay, so let's start here. Ba, ta, ja, ha, kha, da, ra, sa, sha, da, a, ga, fa, kha, ka, la, ma, na, wa, ha, ya. So I'm going to do again. Ba, ta, ja, ha, kha, da, ra, sa, sha, da, a, ga, fa, kha, ka, la, ma, na, wa, ha, ya. هيا هذه اسكو day. Ba, ta, ja, ha, kha, da, ra, sa, sha, da, a, ga, Mhm. fa, ka, no, kha, Wa, qa, qa. Mhm. ka, ka, la, ma, na, wa, ha, ha. Oh no, the X Ha. is ha. So, oh, this is ha. Okay. Ha, yeah. Okay, yeah. So if you see here, this KH, that's kha, and the Q is qa. So the KH more like kha, the Arabic word kha. So this is useful for the words from Arabic, especially khamis and so on. And the Q one is just qa, soft qa, like qali, qadro, qashin, etc. So people from northern Somalia, Hargeisa and other regions, they always separate the kha and qa. They always use kha words from Arabic as they have many words from Arabic in their vocabulary. So they always separate the kha and the qa. If you see the southern Somalia, Mogadishu and other regions, we always use only this one. We ignore this. So we just use everything with qa. Like we say qamis, it's fine. We say qali, we say qadro, but they always separate kha and qa. And this is a. هل مركو عليكن? A. Yeah. So in Somali, it's like the word is you stop the mouth in between, like a. Everyone is like that. Ba, ta, ja. So there's no ba, ta. It's just at the middle of your mouth. You're gonna say like ba, ta, ja, ha. All of them are the same. So we don't say ha, ha. We stop in the middle. Ba, ta. So like this one is a. Ready? A. Yeah, nice. Yeah. Haya, okay. Halkan waxaa ku qoran xarfaha afka Soomaaliga. So xaraf in Somali means word. If we had already some note here, xaraf is letter, and xarfo is letters. So in Somali language, we always use what we call definite article. Like in English, you just say a book. We say most of the time the book, the man, boga, ninka. Like this one, we always go with the letters or the words. So the letters were حرفها. حرفو. In Somali, if the word in its vowel O, we usually change to a. Like حرفو, حرفها. For example, Friday. How do you know how we say in Somali Friday? Yeah. Jum'ah. Jum'ah. Or no, Yeah, it's Jum'ah as origin. So if you're going to say the Friday, we say Jum'ada. We don't say Jum'ada. Yeah. So we change that O to a so that the sound can be better. Okay. okay. So same like this. حرفه, Like, حرفها. is it like untada? Muntada, yeah. Also, key in Somali is furo. What about the key?
should be فروها or فورها. صراحة. Yeah, so that's kind of easy rule in Somali. So حرف و letter, حرفو و letters, حرفها then the letters. Okay, then we have af with ka. Af wa mouth in Somali we also use to say language. So af we can say mouth and we also say language. So afka should be the language. So waxaan dhihi karnaa af Carabi, af Ingiriis, af Chinese, and so on. Every language you just need to start af then the language name. Italian we say Italiani. So can you try Italian language? Af Tiliani. Yeah, Italiani, yeah, like that. So af is not only mouth in Somali, also means language. But some people would go with the word from Arabic, which is luqad. Oh, It's okay. also language. So they might say Luqad. luqada Somaliga. Yeah, luqada Arabiga, like that. People go with usually af Somali, af Arabic. Okay, then we have harfaha, the letters. Wawenka. Wain in Somali is big. Wawenka, big. We just mean capital letters. Okay. هل مرة آخر مركة با إلا يا أنت قبل أو فها وينكا وينك هي با تا جا ح خا نا كان محاوية ح كان محاوية جا كان محاوية كان محاوية لا or لا لا يا كان محاوية سا كان محاوية دا لا اوكي ما شاء الله في عندها هي so حرفها يركة و small letters just the same reading با تا جا ح خ د را س ش ض ع ج ف ق ك ل م ن و ه ي so everything was same. I just you just maybe you need to practice very well ra and a, and I think the others are fine. Yeah, and I think you understand the main difference between kha and qa. صح? yeah خا and qa. Yeah, qa. Okay. reerkaaga halkay kasoo jeedaan magaalade? كعلي Like where you reerkaaga magaalade ku noolaayeen Soomaaliya? كالكايا. Gaalkacyo, okay, then nice. So you're gonna go with usually qa. But in Hargeisa and northern most of these countries, I mean regions, they separate this. They always go with kha and qa. We usually we say qa. Yeah. Okay, here. So ashirka kuwaad waan dhamaynay. We done lesson 1. So after we did this one, we have 2 tasks to do. The first task is to read Ba'taja in the group after the class is done. And the second task will be to make or to submit assignment 1. So to submit the assignment, you just need to go to the Google Classroom, then go to assignment section and here. So assignment 1 should be lesson 1 and maybe right click, open new tab. And you're gonna download in your PC, then edit in your PC, then send to the WhatsApp group, not to the Google Classroom. Okay, if you see here, Ashar Kowad lesson 1, your name, you can just change your name to here. So maybe you already did to record your voice note on the group. You just need to do this one. And if you can do both, it's fine. So some template can استعمال مقعد القر, then send to the WhatsApp group with your voice note. So what you're gonna do is click in here, download button. Then it will go to your PC. Okay, let's see the download here. Okay, close this one. Yeah, this is the document we have. I think maybe you cannot see. I'm going to stop share screen and do again. Where is it? Yeah, this one. Okay, مجد هذا. Yeah, so assignment 1, now it's editable. So you can go with here, your name maybe, Hamdi
and you go here with just completing the Somali Bataja. You say with ja, say ha, until yeah. And for the voice recording, maybe after the Mhm. class, if you do, you don't need that. If you don't do that, you need both. Then you just need to download or maybe save your work, then go to the group and send. That's how you do the assignments. Okay. Okay. Yeah, that's just okay. Now let's go back here. Okay, so assignment 1, that one. Okay. But for the class task in the group, it's just go to the group and read Bata until yeah in the group with your voice note. And for the assignment, you can do that maybe later. Okay, now before we go to flashcards, we need to go to lesson 2 so that we learn vowels in Somali. Okay, that's good. Hey, hadda we can check in lesson 1 it says go to flashcard section and check Bataja flashcard. Now we can check because now we know vowels. So to go to flashcard, just go to the and in here we go here flashcard, so you can check flashcard section Bataja. New tab and I think flashcard vowels as well. We did vowels. Yeah, so maybe for lesson 3, write and reading, we can check tomorrow because now we have so many tasks. Okay. Okay, so Bataja flashcard is all about practicing the Somali alphabets with kind of words. So now we know the vowels like a, e, I, o, a, e, I, o, and we know the alphabets Bata, ja, ha until yeah. So let's try reading these with so that we can maybe also memorize the alphabets. Hey, can it's today? Borsa. Yeah, so ba borso. Hey, ta. Borsa. Ta timid. Hey, Cha jer. jer. Hey, ha. Ha heb. Yeah. حاب ما فهمتي وبيتش. صح. أيوة. خ خميس. خميس صح. د دون. دون صح. را or no ra root roti روتي صح. roti ra okay. Sa or sa sun. Sha shanla. الله أيوة. Da deal or ديل deal. أيوة. Deal. ديل Okay. yeah, right. ديل. Okay, so deal. A Anna. Gel. The recording started. Okay. waxaan baranaynaa maanta 10ka saddexaad iyo 10ka afraad. Shalay waxaan baranay 10ka koowaad iyo 10ka labaad xarfaha af Soomaaliga. Sidoo kale waxaan baranay shaqalada. Sidoo kale waxaan baranay sidii loo sameeyo af Soomaali erey ama sound cod sidii loo sameeyo baranay. Maanta 10ka saddexaad waxaa ka hadlaynaa wax badan oo ku saabsan qoraalka iyo akhriska writing reading. kadib 10ka afraad waxaan ku baran doonaa af Soomaali basic conversation oo useful ah iyo waxaan ku baranaynaa lambarada af Soomaaliga eber ilaa iyo 19 kadib 20 30 40 fudeed way markaas will be easy. 10ka afraad 10ka labaad waxaa la socdo vocabulary la socdo. vocabulary wuxuu leeyahay flashcard iyo wuxuu leeyahay vocabulary caadi. vocabulary waxaan ku baran doonaa erey kasto iyo definite article like kursi kursiga miiska. kadib waxaan ku baran doonaa erey kasto inuu yahay lab ama dhadig whether it's masculine noun or feminine noun.
Of Somali, the sentence they always change depending on the masculine or feminine. Kadib waxaan baranaynaa erey kasta oo ah plural ama ah wadar, keli iyo wadar, singular iyo plural ayaa baranaynaa. Kadib waxaan baranaynaa sida loo isticmaalo possessive pronouns af Somali. My, your, our, his, hers. Waxaasaan baranaynaa. Okay, hadda waxaan ka bilaabaynaa casharka saddexaad. It's about qoraalka iyo akhriska af Soomaaliga. Si af Soomaali u qori kartid si fiican u akhrin kartid, waxaa u baahan tahay inaad si fiican u fahamtid shaqalada af Soomaaliga, Somali vowels. Okay, shalay waan baranay kuwan. Ukaash hal mar akhri kuwan. Shaqal dheer iyo shaqal gaab akhri. Haye. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Okay, kan waxaa dhahday hal mar shaqal gaab ka dhig. Aa dhahday oo dheh. U. Waa fiican tahay. Cabdiraxmaan adigana akhri. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Okay, maasha Allah. Haye, so qof kasta oo kuwan si fiican u akhrin karo, sidoo kale wuu qori karaa af Soomaali fiican, sidoo kale wuu akhrin karaa af Soomaali fiican. Laakiin haddii kuwan si fiican ma u akhrin kartid ama you use as English way like this one like e and then adeeg way af Soomaali to read and write. Laakiin inta kale waa fudud. So markii af Soomaali la qoraayo waa sidan camal. Qof wuxuu rabaa inuu qoro bas, so waxaa u baahan tahay inaad ka fikirtid ereyga xarafka u horeeya maxaa waaye the first letter, the last letter, and the vowel should be a, e, I, o, u. A, e, I, o, u. Mid ka mid a noqon doonaa depends on how the person pronounces. So qofkan hadda waxaan dhahay bas, just waa hal a, waa shaqal gaab. Kasi ana ma dhihin baas, ma dhihin waxaa dhahay bas, waa shaqal gaab. Ba u horeeyo, sa u dambeeyo. So waxaa waaye bas. Okay. Cabdiraxmaan, kan iyo kan labadan xabo akhri. Ba shaqal dheer waaye, ku dar kan akhri kan akhri. Haye. Baal, buug. Buug. Haye. Ukaash labadan akhri, saddexdan akhri oo ta ka bilaabanayo. Haye. Tin, tiish, toos. Toos, so af Soomaaliga hee waxay leedahay singular noun iyo plural noun. waxaa maqashiin timo. It is also tin. One hair waxaa dhahnaa tin. Englishka waa no one hair mahano, wax kasta waa hair. Sax. Sax. Af Soomaaliga so hal tin waxaa dhahaysaa hair, waxaa waaye tin. Hadday ay yihiin plural noun waxaa waaye timo markaas. Haye, kan haddaan akhriyo ja haddii ba lagu daro waxay iska noqonaysaa jab. Haye, Cabdiraxmaan kan isku day. Haye. Jeeb. jeeb, haddaa dhihi lahayd laakiin jiib sax maya jiib. Khalad waay. So halkan English e laakiin af Soomaali waxaan sheegnaa jeeb sax waaye. Kan wuxuu noqonayaa just xal. Haye, Ukaash kan waa xeeb. xeeb sax waaye. xiib sax ma ahaan lahayd ama qalad? may khalad waay. Because e waa English laakiin af Soomaali waaye. Okay. kuwan haddaan akhrino haddana okay, saddexda oo da aqri iman. doon, daah, daris. Ukaash saddexda ra aqri. roob, rooti, riyo. Okay, sax waaye. kuwan haddaan fiirino kan u horeeya waxaa waaye daal, kan waa rag, kan waa dumar, kan waa raadi. Cabdiraxmaan kan diin miya ama deen? Dayn. deen. Kan waa rinji, kan waa daan, kan waa raac, kan waa duul, kan waa run. Okay, hadda si aan u tijaabino inaa af Soomaali qori kartiin ama akhrin kartiin, halkan haddaan tago note. So markii horta waa ina ogaatid muhiim waaye af Soomaali oo
oo la qoraayo when writing Somali waxaa jiro different ways. waxaa jiro af Somali for social media jiro, Somali for websites jiro, Somali for books jiro. So af Somali oo books lagu qoro iyo websites wax yar waa wax adeeg because waxay isticmaalaan difficult words which is not even useful in real life Somali ay isticmaalaan. marka hadaa af Somali baranaysid, it's not recommended to read BBC website then try to use those words in real life Somali. dadku way yaabayaan waxay ku dhahayaan maxaa ka hadlaysaa. Laakiin English I know sometimes book wax ku qoran waa ku hadli kartaa caadi waayo. So tusaale ahaan TV iyo waxaas hadday ka hadlayaan politics waxay sheegayaan saacad waa taqaana maano Akash. ساعة saacad waa watch and then markaan dhihi rabo time maxaa dhahaa ساعة like what's the time markaan dhihi rabo أو ماك ساعة meeqa saac camal haa. I can also say only time waxaa waqti waaye. أو So waxaan dhihi وقتي karaa waqti waxaa ka dhiman 4 daqiiqo like the time left 4 minutes waxaas camal waan dhihi karaa. Okay, hadday ka hadlayaan BBC or websites or TV they always way iska dhaafaan inay isticmaalaan words from Arabic, so they try to make their own words which is not even used in real life. waxay dhahaan marka goor sheegto, sheeg waa tell somaan, goor it means time, so goor sheegto waxay ka wadaan waqti, time ay ka wadaan. So ninka TV oo ka hadlaya wuxuu dhahaa goor sheegtada hadda waxay tilmaamaysaa like maybe UK now 9:15 wuxuu dhahaa goor sheegtada hadda waxay tilmaamaysaa 9:15 then you hear this word from websites or TV and you try to use in real life Somali, dadka way yaabayaan way qoslayaan waxaas maxaa ka hadlaysaa saacadii dheh waqtigii dheh fahamtay. So kaas waa af Somali oo TV waxaas laga isticmaalo. af Somali book ku qoran asagane like sidaan camal waaya. qofaa wuxuu dhihi rabaa maybe kasoo qabo I want or I need some water. So waxaan say waxa aan rabaa biyo, or let's say biyo ayaan rabaa. So kuwan waxa waaye waxaa la dhahaa long form waaye, long format waaye. af Somali markii oo laga hadlayo we always use the shortest ways. So hadda kuwan waxay u eg yihiin af Somali oo ku qoran book. tusaale ahaan waxaan ku dhihi rabaa how are you doing good waxaas camal aan ku dhihi rabaa. So midka aan ku hadalno waa short form, waxaan dhahnaa see tahay with your name, see tahay cabdi. Okay. haddii tahay textbook af Somali waxay noqonaysaa sidan, sidee tahay cabdi. So halkan waxaa ujeedaa kan waa long form, sidee tahay. kan waxaa ujeedaa short form waaye, just see tahay. halkan waxaa ujeedaa waa labadooda waa long form, waxa aan rabaa biyo should be waxaa rabaa biyo, biyo ayaan rabaa noqonaysaa biyaa rabaa ujeedaa. So haddii kuwan aad ku hadashid funny waa af Somali. hadda tusaale waxaan isku daya inaan ku hadlo long form. Ukaash waxaan ku weydiinaa su-aal sidaan camal haddaa qof su-aal weydiisid dadku way qoslayaan marmar. haddaa ku dhaho Ukaash maanta maxaad samaysay walaal, like that mujeedaa. wax kasta waxaan ka dhigay long, waa kala reebay. sidaas haddaa u hadlo maybe guriga haddaa isku daya sidaas inaan u hadlo qof kasta wuu qoslaa, they never reply to me, way u qoslayaan mar walba. wax fiican sheeg maxaa waxaas like that. So waa inaa ogaatid waxaas inaa ogaatid waaye. Somali oo waxaa jiro for TVs, Somali waxaa jiro for books. kan lagu hadlo always waa the shortest, wax ugu gaaban isticmaal. haddii qof su-aal ku weydiiyo af Somali mu baahnid to explain more, just use the shortest answer. haddaa ku dhaho kasoo qabo maanta quraac ma cuntay, haddaan ku dhaho
you don't need to say ha maanta waan cunay quraac funny waaye iska dheh ha we just say waa cunay we just say ma cunin so kuwaas muhiim waaye inaad kala ogaatid waa wax fiican okay hadda waxaan rabaa inaan qoro saddex erey saddexda erey kuwaad markaan qoro cabdiraxmaan waxay ii sheegaysaa sax waaye ama qalad waaye هي okay erey kuwaad aqor rabo waxaa waaye macalin let's say macalin ereyga labaad aqor rabo waxaa waaye hooyo ereyga saddexaad waxaa waaye aabe okay haya cabdiraxmaan saddexdooda sax miya ama qalad waaye macalin sax miya معلم خلد واحد maxaa ka qaldan مثلا أنت لبا أبا qoray miya hal la rabaa miya هل بربا يو haya لا هل لا واحد waxaa jira af soomaali waxa la dhahayo double letters english I think inaa qabtiin soomaali xarf oo laba mar la qoro waxaa waaye ma na la ga ra da ba haddii xarfahan ay ku jiraan a word and vowel uu ka horeeyaa vowel uu ka dambeeyaa double aa laga dhigaa and sometimes it's not always like if it's verb you don't need to make double noun is ka dhig sidaas hadda macalin waa laba la waxaa dhahaysaa macalin yeah you know saying macalin say هي macalin there's a gap here macalin okay kuwan waa xarfaha double letters of Somali and if you want to never forget there's way to like memorize in an easy way waxaan u xasuusanaa af Soomaali marka la baranayo you always ku dar vowels ku dar in between ma na la ga rad ba so for this case you never forget these words this is how I also memorized when I was young and this is how I memorize now easily because just random letters no one is going to memorize like in vowels ku dar it sounds like a word maahan laakiin mana la garad ba dheh Cabdiraxmaan أنا لقرات بقى ha laakiin erey maahan it's no meaning just waxaa ku xasuusanaysaa xarfahan when you say mana la garad ba you said ma na la ga ra da ba see todoba waaye todobadaas you never forget if you memorize like this so you tell your memory okay this mana la garad ba okay ma na la ga ra da ba sidaas okay hooyo sax miya خلد واحد hay maxaa sameynaa حرف يا لكدوم بيا خلد واحد و hal oo miya هل واحد يو ha ها تا كدوم بيا لبا أو واحد laba oo okay hooyo hadaan fahmay bas sax miya ma qalad waaye بس صح واحد okay but one thing sidoo kale من aha لقرات بقى هو aha مو فولو كريو ha also you do like this be sax waaye laakiin waxaa arkaysaa sometimes um, maybe you also do in English of Somali we do sometimes grammar mistakes just as the Somali even native like this one usually they skip this part so it should be like this صح waaye so be marka sax waaye lababa marmar waxaa arkaysaa sidan aabo waa caadi so when you call in you say aabo when it's just a noun waa aabe okay markaas hadda waxaa qoraa saddex erey adigana saddexdooda sax miya ama qalad waaye kan ugu horeeya waxaa qoray
kan labaad waxaan qoray okay. kan saddexaad waxaan qoray okay. ayo kaash saddexdan sax miya ama qalad waayo wax ka mid ah ayo kaash mana maqlaysaa ها وك Okay. مقلي كيو كو قلد واي aya kan koowaad ها instead of key ko kan koowaad كنكوات kan koowaad maxaa qaldan حركي ضمبيو هل أو بس لو بورصو okay waa boorso aya kan labaad وقلد حرف ضمبيو ما هل إي واي تربي okay sax waaye derbi aya kan u dambeeyo كان ضمبيو طلد صحوة sax waaye haa sax waaye okay kan waa haddii wal hal la laga dhigo wal qalad waaye غلط because waa xarfaha la walaam it should be like dalad dalad so waa dalad dalad ثلاث haa okay kuwaas waa muhiim so hadda aan arko if you can write something zoom chat ku qor qof kasto saddex eray you can see in your room chat ku qor just 3 words okay عبد الرحمن كرسي صح waaye kaash waxaa qortay miis kan koowaad furo miya ها فروع furo waa qaladay kan labaad nal miya ها نلوه nal waa qaladay okay waxaa qortay nuul I نور think you thinking as English null as NUL in ها English Somali maahan furo waa shaqal gaab ana waxaa arkay furo فروع cabdiraxmaan armaajo sax waaye nal sax waaye so kaash furo waa sidaas camal just furo nal sherbiil sidaas laakiin hadaas sidaas dhahdid English camal waaye nal ever okay kaas af Soomaali qoraalkii akhriska waaye waa muhiim haddii tusaale ahaan aad ku qoraysid af Soomaaligaas social mediada aad ku qoraysid sidii WhatsApp you don't need to write all of these you don't need to think all of these double letters wax kasta ka dhig short ka dhig and also it depends on qofka la hadlaysid so aniga inta badan waxaan qoraa af Soomaali oo full aqra so my keyboard recommends me just the words I'm going to write I just click laakiin maybe marmar walaalahay waxay qoraan short always lasoo af Soomaali oo internetka sidaan camal ay qoraan kaas waxay kasoo gaabeen assalaamu calaykum hadaa complis oo salaan qorato sidoo kale waraxmatullaahi wabarakaatu sidaasay kasoo gaabiyeen wacalaykum قصالة ديدا xaaladeyda haa okay hadda waxaa fahamnay my markay tahay lab iyo markay tahay dhadig okay labadaasaa su-aalkaa weydinaa firinjeer maxaa dhihi lahayd my fridge maxaa dhihi lahayd فرنجير كيغا okay laptop maxaa dhihi lahayd لابتوب كيغا laptopkayga maxaa dhihi lahayd marwaxad كان مياددك dhadig waa haa مرحبا ديدا marwaxadeeda wa'du way soo horeysaa marka hore marwaxadeeda مروحة ديدا haa okay ahlaaba ku dareenaa maxaa dhihi lahayd miis
miiskayga. yeah so sidaas hadda waxaan fahmnay sidaa u isticmaali lahayn my waxaan fahmnay markay tahay lab waa ya-ga but first different aad kala horeeyo kadib yaga iyo waa ya-da for dhadig okay saacad ku dar different aad kala saacada so saacadeeda haya hadda waxaa fiirinanaa your iyadana waxay leedahay lab iyo dhadig masculine iyo feminine your markay tahay lab ku dar aga laakiin first waa inaad ku dirtay different article Haya. so intaa ku samaysanayna iyadana let's say my waxay kan ka dhig inta waxaa leenahay your waa lab so waxaa lagu daraa aga kursiga okay waxaan isnaa miiska mobilka okay kursiga kursi wuxuu ahaa ereyga kursiga labaa waxaa la socda different article aga ku dar gadaal so waxay noqonaysaa kursigaaga kursigaaga. yeah Kursigaaga. haye miiska oran miiskaaga. mobile mobilekaaga. yes okay feminine markay tahay waxaa u baahannahay instead of ga meeshaas waa ka dhigana da bes da so instead of so you cannot use these nouns since they are masculine nouns waxaan dhahay dhadig inaan isticmaalno waay waxaan isticmaalaynaa dhadig waxa waaye sariir okay halkanaa ka koobiye karnaa kuwii dhadig waa kuwana waa kuwana ahaa okay ya kuwana inta inaan dhadig ka dhiga dadaate kuwaana isticmaalayna marka sariir iyo saacad iyo qasaalad okay meeshaan dhadig waaye okay ay sariir waxaa dheena sariirtaada. sariirtaada saacad saacadaada. okay qasaalad qasaaladaada. ya okay hadda waxaa baranay your baranay okay isku day miis maxaa dhehaysaa your table miiskaaga. kursi kursigaaga. waxaa dhahday kursikaaga ma dhahday mise kursigaaga kursigaaga. yeah because waa kursigaaga kursigaaga. sariir sariirtaada. sariirtaada armaajo kan dhadig miya. dhadig waa armaajada. maxaa dhahday armaajada. armaajadaada armaajadaada. okay. because waa armaajada daada. so armaajadaada. u bedelenaa oodaas u bedelenaa armaajada so armaajadaada armaajadaada. okay ma qori kartaa armaajadaada. ku dareenaa qaybtan slash intaas waa armaajada so armaajo o to armaajada so ada ku dar armaajadaada. armaajadaada waa hilmaamay inaa lagu bedelo. okay haye so waxaa kaloo ku sheegaa af soomaaliga markii these da ay ku dhamaanayaan at the end like sariirtaada da'daasi we don't just say normal da waxaa isticmaalnaa sidii af carabi like thel waxaa dhahnaa halkana kaa tusi karaa we don't say sariirtayda waxaa dhahnaa sariirtayda more like like waxaa dhahnaa sariirtayda saacadayda qasaaladayda we not say sariirtayda saacadayda saas waa adeeg saas waxaa af soomaali waxaa ku jiro da as pronunciation laakiin waa erey ma ku jiro oo da ah af soomaali okay. yeah so kan waxay noqonaysaa armaajadaada. armaajadaada. so armaajada I'm still missing another da so armaajada then laba miya.
armaajadaada iyo hadda waa saxanahay because da'dan waa definite article da waa my صح armaajadaada okay hadda waxaa fahmnay my iyo your labadooda fahmnay kana hoos u bixinaa haddana waxaa fahmaynaa qayb kale okay so labadaas waan soo fahmnay hadda waxaa fahmaynaa markaan your marka la isticmaalayo laakiin ay tahay group of people plural like haddaan ku dhaho this is your house adiga ka hadlaya Cukaash gurigaaga waaye laakiin ka waran what about all the family markaas waxaa isticmaalaa gurigiina waaye dad badan waa markaas gurigiina like haddaan ku dhaho hadda see tahay how are you haddaan ku dhaho see tihiin how are you like waa dadka badan qof walba okay everyone that's when you use your plural so kan waa plural there's no masculine and feminine rule erey kasta waa isticmaali karnaa this rule waxaa ku darnaa we need to remove the last then add ina for example let's say kursi different article muxuu noqonaa kursigiina waa just kursiga somaan aha then adan or different article always remove samayn doonaa if you're using your plural because three vowels cannot go in Somali at the same time halkan fiiri ha waa dhawaaqu khalad wuxuu noqon lahaa kursiga ina so adaas drop baa la sameynaa waxay noqonaysaa kursigiina okay kana inta kubiyanaa sug your waaye then waa plural so waxaa u baahannahay ina also waa double n and we also need to say remove last let's say remove then ina okay kursigiina okay halkana soo koobiyeysana kursi okay miis iyo mobile iska qoraa mobile miis haya mobile muxuu noqonaa mobilkiina mobilekiina haya miis muxuu noqonaa miiskiina miiskiina sax waaye okay kaas waa markay yihiin dad badan ama plural group of things hadda tusaale haddaa ku siiyo hal erey we don't have here waxa waaye guri house sida dhihi gurigiina lahayd sax gurigiina laakiin ma dhihi kari inaan dhaho sidan guriga iina ma dhihi kari three vowels kada gurigiina okay kaas marka waa your markay tahay plural halkan hoos waxaadana arkaynaa mar kale our marka isticmaalayna af Soomaali so our again waa plural there's no masculine and feminine noun just our a group of people same rule vowel I at the end waa diladana and instead of ina waxaa isticmaalayna ena okay kuwaana hadda ka qaadan karnaa tusaale let's say halkan waa our and instead of ina then ena okay meeshii ahayd kursigiina your waxay noqonaysaa markaan eno kursigeena waa our and then mobilekiina waxay noqonaysaa mobilkeena mobile maha mobile waaye mobilkeena yeah because mobile most sound is English mobilekeena hey miis waxay noqonaysaa miiskeena miiskeena hey guri wuxuu noqonaa gurigeena gurigeena okay halkana tusaale ka siinayna marka okay let's say yeah qasaalad more like general thing hey qasaalad waxaa dhigi kartaa our washing machine qasaaladeena ku celi hal mar qasaaladeena qasaaladeena haya dhalo oo TV waa more general hey see dhigi kartaa our TV dhalodeena miya
dhaladena waa dhihi kartaa like at the end when using in. You don't say dhaladena. Daladena. Okay. Or you can say tvgana. TVgana. Okay. Fringer waa more general. Say dhigaysaa our fridge. Frigerkana. Frigerkana sax waaye. Okay, kaas waa our markaad isticmaalaysid eena u isticmaal. So labaan oo soo haray. Waxaan soo haray 3 their iyo his iyo her. So they then theirs. Theirs waxa waaye same thing, just waxaa isticmaalana ooda instead of ana. Kana hadda tusaalahan aan bedeli karnaa. Okay, kan kabobino dheh. So halkan kuwana hoos u bixinaa hal mar. Okay. Okay. Instead of ana, markan waa ooda. So we don't say Ona. oda, just the. Oh. Oda. Oda. Waa da. So hadday ahayd kursigeena our. Hadday ahayd markaan waxaan dhihi doonaa theirs. So waxaa waaye kursigooda. Hey. Mobile maxaa dhahayna? Mobilekooda. Mobilekooda. Hey. Miis waxaa dhahayna? Miiskooda. Guri waxaa dhahayna? Gurigooda. Gurigooda. Okay. Kaas waa theirs markaan isticmaalino. Okay. Laba xabaan oo dhigan bis. Hadda waxa waaye his iyo her. Still waxaa isticmaalana last vowel in drop lagu sameeyo. So haddaa isticmaalana his, we're gonna need to add at the end isa. Okay. Waxaan isticmaali karnaa markaa kuwan dhammaantood waa masculine noun. So still iyagaan isticmaalana. Let's say kan waa his. Okay. Waa isa at the end. Kursi maxaa dhahaysaa? Kursigiisa. Sax. Kursigiisa his table or his. Okay. Chair. Mobile. Mobilkiisa. Mobilkiisa haya. Miis. Miiskiisa. Miiskiisa. And guri. Gurigiisa. Gurigiisa sax waaye. Haya. Qaybta ugu dambeyso aan sameynayna hadda. Kadib waxaan ku weydinaa. Qaybta ugu dambeysa waxay noqon doontaa in la sameeyo her oo gabar marka laga hadlayo. Instead of isa waxaa isticmaalanaa eeda. Eeda. Okay. Let's take feminine nouns away. Kuwan waaye. Go her, hers, and we need to add either and okay. Sariir maxaa dhihi lahayd? Sariirteeda. Armaajo. Armaajadeeda. Armaajadeeda. Saacad. Saacadeeda. Saacadeeda. Qasaalad. Qasaaladeeda. Qasaaladeeda. Okay, yeah. So intaas, the whole rule waa intaas. And let's say hadda 3 erey aan ku siinaa. Or maybe waxaa ku siinaa. Okay, 3 erey aan ku siinaa marka hore. Chatka kuu qoraa. Wax isku daydaana ka samaysid. Just let's say 2 erey bas. 2 erey ku siinaa. Mid waa lab, mid waa dhadig. Labadaas erey waxaa samayn kartaa mid kasto. My, yours, ours, hers, theirs, wax kasta. Tusaale waxaa ku siinaa maybe kasoo qaba kursi. Tan waxaa dhahaysaa kursigayga, kursigaaga. You can maybe haddaa rabtid waxaa rabtid kala hormarsii. If you can start maybe our, his, her. Waxaa rabtid ka bilow. Okay. Erey kuwaadaan ku sii waxaa waaye waa lab waxaa waaye. Do you say baabuur oo gaari? Baabuur aa dhahaa ama gaariga. Okay. Both. Okay. Baabuur.
kaas waa lab. Marka hore waxaa u baahan tahay inaad ka samaysid all the positive pronouns ku dar. My, your, his, her, our, theirs, wax kaas ku dar. Kan labaad waa dhadig, ka dhigaynaa lacag. So lacag waxay noqon lahayd lacagta, baabuur waa baabuurka. Haye. Afka ma ka sheegi kartaa ama waa qoraysaa sidee ku fiican? Um, waa sheega. Okay, sheeg, then waan noo qoraa markaas. So Okay, isug markaan mar space fiican aan sameynaa. Okay, intee ka bilaabaa? baabuurka bilow. Ana qoraay adi waana sheegi kartaa. Haye baabuur. So baabuur, baabuurkiis. Okay, isug geeskana ku qoraa wixii la sameyn lahaa. Okay, waxaa ku dhahaynaa my, kadib waxaa dhahaynaa your, kadib waxaa dhahaynaa let's say